بسم الله الرحمن الرحيم. دمانتين waxaan salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan maanta ku faraxsanahay doodan inaan ka soo qayb galo. Marka hore waxaan rabaa odayaashan taladan dooda soo jeediyay way ku mahadsan yihiin waa meesha wax ka dhalan kara mustaqbalka markii la doodo waxa soo baxay daldaloolo badan iyo wax dheelo badan baa soo baxay markaas la ambaqaadaya marka waxa oran lahaa bishiiba laba jeer in la qabtaan taa ku tarin lahaa si afkaar badan u istooban waxyaabaha khaldan la tilmaamo runtii waxyaabaha aan ka hadlay lahaa rag odayaalaha ka hadlay Salaad Cali Jeelle Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Tarsan runtana in laga xanaaqa ma ahan Tarsan wuxuu ka hadlay wax dhaba oo la taaban karo oo dalka dhibaato ku ah maamul goboleedyada oo hadda maanta jira waa caqabada koowaad oo dawladda ku ah maxaa yeelay taladii dawladda federaalka lahayd oo dastuuriyanka ahayd dawladda baa lagu qabsado marka taas horta in laga xanaaqa ma ahan midda labaad waxaan rabaa halkan inaan madaxda dawladda u marsiyo sida hadda imaamku sheegay in ay talada la wadaagaan siyaasiyiinta nabadoonnada tala weydiiyaan maadaama dalkaanu yahay dal dhibaato ku burburinay oo wali meel Soomaaliya isku keenay inay jirin inayna qol isku xirin oo banaanka yimaadaan oo siyaasiyiinta la hadlaan oo isimada iyo waxgaradka la hadlaan taasna waan ku boorinayaa oo maaragtay ayna qol isku xiran qol haday isku xireen gudoomiye Tartan baa sheego 10 bilood madaxweynuhu ma aqaan 10 bilood iyo dhowr 10 buu madaxweyne yahay aga jugleyn iyo handadaad baa waxa loo hayay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha mooshin baan ka keenaa xaqiiqda dhabtaana gudoomiye Tartan baa sheegay taasna waa in horta muxuu ahaa albaabada u furan siyaasiyiinta si culayska iyo dhibaatada xildhibaanada ku hayaan uga fududaadaan midda labaadna waxaan rabaa inaan talo ku soo jeediyo nimanka culimada ah oo wadaadada ah ayana inay joojiyaan xasaasiyadda wax kicinaya iyo baarlamaanka ay leeyihiin guryaha loogu daadanaya ayana inay joojiyaan si xasrad u yaraato taasuna waxay sii kicinaysaa xasrad bay sii kicinaysaa maanta Soomaaliya uma baahna inta xasrad la kiciyo dib inaynu u noqono oo dhibaato horan uma baahna dawladeena inaga burburinay inaga waxba ku ciyaarnay dawlad kastoo timaadana hadaynu burburin dhibkeeda yaan ka burburin oo tiyeenis u burburin Soomaalida waxay yiraahdaan muxuu ahaa Soomaaliya wadameesha burburinaya waxba kama jiraan waa beentaas haddaan aynagu isku noqono aynagu isu tanaasulno danteena iyo qarnimadeena iyo dawladeena qabsano oo halka istaagno wadan kugu soo degdegaya iyo wadan ku hunguriyeynaya midna ma jiro aynagi waa la kala fasafan wax kale iska daayo xalana subaxii taga hool waxa jiray hada hoolka qabaylka lagu kala qaabilo gidi waxay ka dacwoonayaan ilaa 2000 iyo muxuu ahaa 7 ilaa hadeer cid wax ka qabatay male xalana hadaagti waxa tagaysaa boqolaal hool leh oo qabaylkii Soomaaliya lagu kala shiray la kala qarinayo subaxii markay talkaas loo shaqo tagaa rag iyo dumar cid la u kala harta male inta qayb baa lagu hadlayaa inta qayb baa gidi maxay ka dacwoonayaan madaxweynaha asaas yiri ra'iisul wasaare asaas yiri wasiir baa asaas yiri kan igala hadal muxuu ahaa wax iga dhig intaas loo dacwoonaya ilaahay baa idinku dhaashay see dawladna ku noqonayna marka xalana la tagaya mid baa wuxuu leeyahay dhagta ugu sheegay wuxuu leeyahay maanta aniga taliye ciidan la iga dhigo madaxweynaha igala hadal mid baa xaq orday wuxuu leeyahay aniga wasiir hebel baan ku fiicanayaa la soo hadal madaxweynaha la soo hadal heerkaasaynu maraynaa dawladnimadiina iyo dadnimadeena heerkaas maraynaa marka waxaynu leenahay maaragtay dalashiina baabiinaya oo dalashiina burburinaya waxaan aynagu samaysanay weeye war masaasan ku jirnaa mise gadaal baynu isugu noqonaa Soomaalidu dhan waa isla qab weynta baal yaro waxa jirta goodadaah xuno yiriisaho dhulka iska qaadaayo haddaad agmartid socodkaaga dhulka ku dhacaysa ayada iyo sagaara sheekaysta waxa la yiraahdaa maxaad dhulka iska qaadaayo waad caata tahay aqliga alla ka qaabtay dhulka ila dumaayay tir marka Soomaalidu dhan heerkaas isla marayna gidigan mid hoose iyo mid kale hawadaas isla marayna inaga siyaasayno gadaal isugu noqoyno wararkeena kala geedisana meel waxaad maqlaysaa nin baa tartamaya madaxweyne u tartamaya ama wasiir ordahaya ama meel ordahaya dhagta loo soo dhaweynay wuxuu leeyahay wallahi kaas waa doqon war Mareykanku miyuu wataa mise dal hebel baa wataa ma arkaysid qof Soomaali ah qof kule muxuu ahaa ninkaas Soomaali baa wadato Soomaali baa codeynayso inaga wadana ma arkaysid marka nimayo cagaha intaynu hoos u soo dajino dawlad la'aan waxay tahay aragnay dhowr iyo 20 sano burburkeedii dhibaatada aragnay aan hoos u soo noqon aan waxda qabsano nimankan talada wanaagsan keenay talada aan qaadano ayaguna talada saa maalin kasta noogu wadeen waxa dhabta xaqiiqdan aan ka hadalno wax xasaasiyad keenay inuu meesha saarno aad iyo aad u mahadsantii